shirkadda Blue Flag horta waxaa aasaastay dhalinyaro injineer ah 2000 waxay soo bilaabeen 17 laakiin waxa si rasmi ah loo aasaasay 2018 ama 2018 shirkaddu ilaa ay hadda waxay ka shaqeydaa mashaariic kala duwan oo solar system ah tamarta dabiiciga ama tamarta oo la cusboonaysiin karo waxaa loo yaqaanaa wax walba oo dib loo isticmaali karo oo laga helo ilaha sida dabiiciga Ilaahay noo siiyay oo kamid tahay qoraxda waxa kamid ah dabaysha waxa kamid ah biyaha tamarta la cusboonaysiin karo waxa loogu baahan yahay si horta looga guuro loogana maarmo waxyaabihii dhamaanayay ee sida shidaalka oo kale sidoo kalena environment-iga wasaqeynayay marka si loo helo tamar nadiif ah oo environment-igina u fiican ama deegaankii u fiican dibna loo isticmaali karo oo aanan dhamaan shidaalka oo kalena ka raqiisan dhaqaale ahaan deegaankana u fiican dadkana u fiican dhaqaale ahaan fiican in aan ka dhalino koronto tamarta dabiiciga ee qoraxda waxaan nagu dhiirigeliyay waxa kamid ah sababo badan sida bulshadii oo dhaqaalaha korontada kala ku cuslaaday iyo waliba in aan dhiirigelino nadiifinta deegaanka oo aan yareeno soo saarka carbon dioxide loo yaqaano shirkadda sidoo kale guud ahaan markaan soo koobo ilaa 15 megawatt oo kale way install gareysay ama fulisay mashaariic ah oo renewable energy ah sidoo kale wali way ku tala jirtaa oo mashaariic waxa jira hadda inline ah oo iyagana aad u badan oo shirkadda ku tala jirto inay hadda wadanka ka sii fuliso guud ahaan horta shirkadaha ka dhaliya tamarta dabiiciga korontada waxa jira caqabado ay wajahaan bulshadii oo aan awoodin inay korontadii hore ka iibsadaan iyo waliba bangiyadii oo ay adag tahay in ay dadka hore deyn ka siiyaan saas darteed waxaa jirta caqabad dhaqaale oo guud ahaan jirta oo bulshada iyo saameysay shirkadaha wadankeena xoogaa korontada iyo infrastructure-keeda iyo qaybinta korontada ma hagaagsana saas darteed qaybtaasna way jirtaa problemkaas himilooyinka fog ee shirkadda Blue Flag leedahay markay timaado kobcinta korontada ama korontada laga dhaliyo tamarta dabiiciga ah waxaa kamid ah horta waxaan tiigsanaynaa inaan dhammaan gobolada Soomaaliya aan wada gaarsiino korontada dabiiciga ah in bulshada awareness-keeda aan sar u qaadno oo dadka marka hore horta aan ka dhaadhicino aan fahansiino faa'iidada ay u leedahay korontada dabiiciga ah la isticmaalo waxaan aad u faraxsanahay inaan qayb ka nahay bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed ee qabanayso shirkadda Hormuud waan ku faraxsanahay inaan ku soo bandhigno waxqabadkeena